السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت عليكم سو دوادا رمالي كوكين جانل عاو حيدين هاي عشو عجيب أصحابتي شرفت عليكم سو دوادا رمالي كوكين جانل مرلبات وحيدين لي هاي سو دوادا عش عجيب هايدين هاي هالكا وحاكو هيسانا tuna fish waxaan kaloo haysnaa black pepper iyo fish masala. waxaa kaloo halkan inoogu jarjaran waa toon iyo basal iyo maraq dijaaj haafaan ka isticmaali doonaa insha allah. marka waxaan rabnaa inaan intaas isku dardarno waxaan inoo sameyn doono my little brother keegi yaraa ayaa inoo sameyn doono. marka kusoo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysa wacan. waa wax fudud oo wuxuu ku daray hadar 2 qaado oo saliid ah. qofkii rabo olive oil ku sameysan karaa, qofkii kalena waa hadda wuxuu ku shubaa saga waa sunflower oil. marka hadii markaas guriga ku oolin you can do it sunflower oil kaagi ama olive oil hadba kii kugu haboon. marka haatan basashii ayaa lagu shubay. basashi markay shiidanto waa wax fudud oo qof walba sameysan karo runtii. haddana walaalkay ayaa sameynayo, waa kii iga yaraa ayaa inoo sameynayo. marka wuxuu yiri caawa waa inaa aniga cashada aan sameeya anaa ku qoran. marka waa casho fudud oo sameyn karo dumar iyo rag labadaba ay sameyn karaan insha allah. wax iska sahlan oo khafiif ah oo habeenkii la cuni karo. basasha uu shiilaya hadda markuu shiilo waxyaabaha kala dhanna insha allah hal ugu dari doonaa hadduu rabbi ka noqdo. waxaa kaloo jirta in aan ku cuni doono malwax. haddii rabtid waa ku dhex duuban kartaa, haddii kalena sidiisa ayaa maaragtaa aad ugu qaadan kartaa sida jeceshahay. laakiin hadda anaga pointigeeni waxa weeye inaan idin tusno sida tuunaha aan iskugu dardareyno insha allah. inaan idin tusno waa hab fudud oo maaragtaa aadan dareemeynin يعني markii toonaha aan la gaduudinin aan sidiisa markaa ku cuntid gasacaysi xoogaa yar uu yar culus yahay caloosha markuu ku dhaco. laakiin marka aad saan oo kale aad u yar habaysid u kululeysid aad waxyaabo kale ku dartartid wuxuu noqonayaa special uu noqonayaa. haatan basashii waa diyaar insha allah. waxaan ku dardarsanaynaa waxyaabihii aan rabnayna ku dardarno. way yara shiilantay marka waxaan u diyaarinaynaa waxyaabihii kale. maraq dijaajka ku daraynaa iyo toontii iyo maxaa la dhahayaa iyo toonihii insha allah aan ku daraynaa. haddana toontii iyo basashii way isku milmatay. waxaan ku daraynaa filfil black oo maxaa la dhahayaa filfil madow ayaa ku daraynaa. qaadada shaaha ku qiyaaso afkeedii hore. fish masala waay waxaa hadda uu ku daraayo isagana sidoo kale qiyaastiini qaadada shaahiga afkeedii hore waxay ku xiran tahay inta wax aad rabtid inaad karsatid ay ku xiran tahay. gasac toono hadday 3 taa 4 taa 5 tahay. anaga hadda waxaan isku daraynaa 4 gasac oo gasacyada oo caadiga ah oo waaweyn oo normalka ah ayaan ku daraynaa. fishkan waa fish oil waaye ma ahan waterka ma ahan. waterkii oilka dhadhan badan ka macaan. marka waterkana waa ku sameysan kartaa maadaama aad oil iyo wax ku dardaraysid oo shiilaysid dhadhan uu yeelanayaa. laakiinse fishka oilka ka dhadhan fiican. marka gasac waa furaysaa, waa ka daadinaysaa saliida iyo biyaha ku yara jiro meesha waa ka daadinay. markaas aa ku darsanay hadda half maraq dijaaja lagu darayaa insha allah because tuunaha asagaaba sameysan oo cusub wax walba wato.
marka wax badan ma kaaga baahno marka intaasoo la isku shiilayaa waxaana gadaal ugu dari doonaa basbaas cagaar haddii aad cuntiin aad ilmo siinaysiin iyo waxay ku xiran tahay qofka siduu u rabo taasina basbaas haddii aad rabtaan inaad ku darsatiin waa ku darsan kartaan laakiin anaga waa ku daraynaa inaan jarjarayaa insha allah marka waa kaa fishkeena waa fishkeena tuna fish caadi ah oo ay nooca ku samaysan kartaa masti maahan inaan anaga aan inayna inaad samaysatid ay nooc tuna fish ah waa same laakiin waa fishka oilka leh ayaa the best u ah dhadhan ahaan marka la dhaho waa iska miiraysaa biyaha iyo oilka dan wixii waa qaleel kusoo baxaya insha allah marka intaas la isku shiilayaa kadibna wuxuu noqonayaa the best casho in the world buu noqon doonaa insha allah haatan basbaaskii ayaan jarjaranay oo ku daranay basbaaska sidiisiiba dhadhan ayuu u yaalaa inal soomaabaha bis waa ka dajinaynaa saxankeena ayaan ku ridanaynaa fishkii maasha allah tuna fish oo dhadhan badan leh ayaa meesha kasoo baxay kaal iskaarag ah oo aad ka heli doontaan inaba caadi ma aha insha allah kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad ramaalkum channel waxaa idin leeyahay subscribe like share commentigana lagu dadaalo insha allah walaashiina ramaalag u kalkiciya idin leeyahay malwaxa lagu cunayaa bahalka malwax qof walba uu kasayaa luxuux maahan waa malwax hadaba waa kuka so nice casho fudud kusoo dhawaada inaba caadi ahayn